shacabka degmada Elgula ee gobolka Mudug ay horkacayaan mas'uuliyiinta degmadaasi ayaa maanta isu soo bax balaaran ka sameeyay degmadaasi Elgula kaas oo ay ku soo dhaweynayaan ansixinta degmanimada ee degmada Elgula oo iyadu ka mid noqotay 5 degmo oo golaha wasiirada Galmudug ay ansixiyeen kuwaasi oo 3 kamid ah ay ka tirsan yihiin gobolka Mudug halka 2 kalena ay ku biirayaan degmooyinka gobolka Galgaduud isu soo baxan ayaa waxa ka hadlay qaar kamid ah bulshadii waxgaradkii iyo cilmowdiinkii ka qayb galay kuwaas oo dhammaan uga mahad celiyay dawladda Galmudug gaar ahaan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo golihiisa wasiirada iyagoo dhanka kalena ka codsaday golaha baarlamaanka Galmudug inay meel mariyaan mahad celintan xafladan ayaan ugu sameeynay shalay oo khamiis ahayd codkii wasiirada ay meel mariyeen oo ahayd degmada Elgula ansixinteeda ka mahad celinayna maamul goboleedka Galmudug oo uu hogaaminayo Axmed Kaariye Qoorqoor madaxweynaheena iyo golihiisa wasiirada shaqada ay soo qabteen baan ka mahad celinaynaa 114 Quraanka cadadiisa waxaan kale codsanaynaa golaha baarlamaanka Galmudug sida golaha wasiirada iyo madaxweynuhu ay u meel mariyeen inay u meel mariyaan waxaan ku faraxsanahay waxyaabo badan baa weynay deegmo ahaan ku weynay maanta anagoo bahal caafimaadka waxa ku faraxsanahay in loo magacaabo degmo ma ku faraxsanahay wax badan baa ku weynay bahal caafimaadka hadii aan hay hadaa dadaal muujisid dadaalka miris waa qaadanaysaa waxa la rabaa marka ka codsanayna baarlamaanka Galmudug maadaama ay hortaalo masiirka Elgula hor yaalo xibnihii baarlamaanka halka noogu yimid markii wasiirka la socdayna aan farnay kana codsanay haddana mar labaad aan ka codsanayno waxa weeye inay Elgula degmanimadeeda dadajiyaan oo ansixiyaan ugu dambeyn gudoomiyaha degmada Elgula Albaashi Aadan Macallin oo isagu kamid ah shakhsiyaadka muddada dheer u ololeynaya sidii Elgula loogu ansixin lahaa inay ka mid noqoto degmooyinka dawlad goboleedka Galmudug ee ku yaala gobolka Mudug ayaa ka mahad celiyay ansixinta golaha wasiirada sidoo kalena u mahad celiyay shacabka degmadaasi marka hore waxaan rabnaa inaan bogaadino oo aan hambalyo u soo jeediyo reer Elgula degmada loo magacaabay iyo degmooyinka kale oo deegaanada kale lagu magacaabay inay dhaxdaan hambalyo marka labaad waxaan rabaa inaan bogaadiyo dulqaadkii iyo isku tashigii reer Elgula ay sameeyeen inaan idhaahdo mirihiisii maantaan haynaa insha Allah taala ilaahayna waa noo dhameystirayaa aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin waxaan rabaa halkaan inaan ka bogaadiyo oo uga mahad celiyo xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug ayadoo ay jirto marxalado aan ognahay inay adag yihiin marxalado culays ayagoo ay jiraan aan ognahay waqtiga lagu jiro culaysyada haya sida uu ugu dhiiray madaxweynuhu inuu golihiisa wasiirada horgeeyo degmooyinka shanta oo dawlad goboleedka Galmudug ku soo siyaaday